السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن صاحب يا الميل كست جوجتان waxaan ku sugannahay magaalada Burco gobolka Togdheer insha Allah waxaan weydiin doonaa su'aalo kala duwan oo kaftana kuwaas oo ku saleysan aragti oo qofku aaminsan yahay insha Allah isla socod wanaagsan dhamaantii soo dhawaada ku bilaabay magacayga waa Bashir Maxamed Cabdi way Bashir hoteelkan nimanka magaalada lagu soo kordhiyay Burco maxaad ka aaminsantahay sidaad aragtaa hoteelkan wuxuu ka qayb qaatay walaal bilicdi gobolka Togdheer magaalada Burco ayuu inaba caadi ahaan u muujiyay ina muraadna waa mas'uulkii gobolka waa amiirka waan deecna laakiin waxa wacan qofku inuu si yaro magaranaysa wanaagsan cilmiyeysan inuu qofku wax ugu sheego laakiin nin buu meherad xidhaya waxa aqalka badan galiya maaha waxaan u arkaa ina muraade nin ku fashilmay shaqadii loo doortay magaaladu haddii inuu sujiinteedii ka shaqeeyo nadaafadeeda iyo COVID-19 danyartu dhibanas inuu ka qabto laakiin nin meherad ka ganacsi inuu xidho waxaan aqalka badan gali weeyaan wuxuu iska celinayaa nin muwaadin heer Soomaaliya sharcigu maraya deena muraad waxaan leeyahay wadal ku tusaya regime baa تجاوبت بقولها هذا ما سنسى دينته واحد فنانين وشو لو قبل شيء نميشين تبغى كل رأسنا مالي أنا قلنا مراد قبل أساسا ده إن لقيت شو تشوف حنا أساسا سلام يدقروا هذا ما سنسى اللي يردوا وين يتمطرع إلى مراد ما تمر بالموقع بس بقدر كانوا كعروا هذا وين السؤال يبغى كنا قلنا قبل شباب waxa lagu doorto meesha lagu geeyay inaad laamiyada iyo dalka wax ka qabaday inaad qof meheradiisa ka soo horjeedo laguma geen meesha marka waxaan leenahay ninkan meheradiisa hor taagan tahay oo iska hortago laamiyada iyo dadkan COVID-19 kan iyo bal dadka hoos waag qof meheradiisa ka hor aqbaleen aad u maadsanta soo dhawaado ku bilaabay magacaaga aad baan ku dhaw magacaaga Salmaan Maxamed Cabdi way Salmaan hoteelkan hadaleynta badan keenay ku cusub gobolka Togdheer isha Burco maxaad ka aaminsantahay sidaad aragtaa wallahi waxaan ka aaminsanahay in waxaan wanaagsaneyn oo diin ahaan iyo dadnimo ahaan u wanaagsaneyn ka jiraan baan aaminsanahay muraad maayirkan de gobolka hadlayana waan fikirkiisa aad baan soo dhaweynaya waayo diin ahaan waxa aad nagu xun dhaqan ahaan waxa aad nagu xuno fusuq baa meesha lagu sheegay si sheegayaan anu ma arkin laakiin waxaan leeyahay arinka wax laga qabto waayo diin ahaan iyo dal ahaan iyo dadnimo ahaan midna ma wacna waayo dad islaamana dhaqan baynu leenahay ummad baynu markaa walaal herbaco dhaqanada noocan oo kale lagu xaman jirin markaa meel habla iyo ciyaal la suugeenayo dee waska makiinaysan bay noqonaysaa markaa waxaan leeyahay aad waxaan soo dhaweyn laga hortago oo wax laga qabto maamulka gobolka iyo xukuumadda iyo cid kasta oo aqoon leh wax garad leh hawsha wax ka qabto si ay dhaqankeena diinteena aanay u saameynin saasan kale anigu aaminsanahay aad u maadsanta soo dhawaado ku bilaabay magacaaga walaal soo dhawaado magacayga waxa weeye Idris way Idris hoteelkan gobolka lagu soo kordhiyay hadaleynta badan isha Burco maxaad ka aaminsantahay sidaad aragtaa wali waxaan ka aaminsanahay hoteelka la sii daayo way gobolada kale way leeyihiin gool lagu caweeyo tagala ninkan ma sheegaya in muraad lagu sheegayo magaca xilka qabsanaysa ayada quraanada wada akhrinis ayadii quraanka waxba kama aragno waa ka laamigida aragtay marka dadka meeradooda daaniyo waxaad ku dhaaratay sheegaysay waxba kama hayno marka dantaada qaban ku leenahay rag iska daaniyo aad u maasan soo dhaw walaalada ku bilaabay magacaaga waan dhawaay saaxiib injineer Timcade aad baan ku salaamay saaxiib Yuusuf way injineer Timcade maxaad ka aaminsantahay soo aragtaa hoteelkan inta badan imika baraha bulshada haysta gobolka Togdheer isha Burco maxaad ka aaminsantahay soo aragtaa no wallahi hoteelkaas horta horumar wacan buu gool ku soo kordhiyay aad iyo aadna ugu habbaan ninka jaakaraacin laakiin gobolkii ragga madxamanaq iyo waxa laguma baana iyo danaga islula iyo waxa habeen la soo xareeyo ma aha gobol marka gobolku dawa gobol cilmidiin u badan marka waxaan ninka jeegna alla ganacsiga ku barakeeyo dad marka waxa weeye waa inaad ka dhaxbaxda waxaad wado si la sheegayo doodagna ku sheegay xataa nin weyn oo wax garada marka inaad ma jeceliday inaad inantaada la yimaado meeshan oo lagu baqlayo sanadteedo hoolka hadraawi soo gal marka waxaan ku leenahay jaakaraacino ka tanaasul oo waxaanad wada ilaahay ka cabso oo marka waxaan waa fusuq waxaan maamulka gobolka iyo walba sihaanina muraadna aad iyo aad buu mahadsan yahay waayo dadda waxaan waxa weeye waa wax dhaqan xumaa marka qof quro ku taageersan iminka rayigayna oo qaba in
uu ku jaacaraacin halka fusuq halka ka bilaabo ma jirto marka waxaan ku leenahay ganacsigaagu meel wacan buu ku maraya gobolkana ku soo dhawow gobolka ciid kaamale jaacaraacinow adba nin reer burcaaba tahay oo waliba waxaan ku wardiyaan de marka aad ordada iyo dadka iyo magaranaysa muusigana aad qaraamigan caadiga iyo magaranaysa majaajila caadiya ku soo bandhig baan ku leenahay jaamacu laakiin waxaad kanaad waday de naga daadeer baan ku leenahay gobolkana ciid kaamale aad baan ku salaaminaa adiga iyo saaxiib soo dhawow adiga ku bilaabay magaca walaal waan dhawahay magacaygu Cabdi Xasan Axmed way Cabdi Xasan oo su'aal kaftan ku weydiinana maxaad ka aaminsantahay si aad u aragtaa hodheelkan lagu soo kordhiyay gobolka Togdheer ama Isha Burco ni horta hodheelkan in ganacsi cusub la soo kordhiyay way wacan tahay laakiin hodheelkan wuxuu keenay niyow arrimo diinta ka baxsan in muraadna uu ku saxsan yahay arinta oo qabta marka waxa roobku inoogu daawi waayay waa heesaa iyo fusuqa la qabanayo marka taasina ma wanaagsana laakiin in ganacsi cusub la soo kordhiyo aad bay wanaagsan aad u mahadsantahay soo dhawow walaaladiga ku bilaabay magaca aan ku dhawaay walaal magacaygu waa Barqas Ismaaciil way Barqas Ismaaciil hodheelkan hadalhaynta su'aal baan ku weydiin doonaa insha Allah hodheelkan hadalhaynta badan gobolka Togdheer ku yeeshay Isha Burco maxaad ka aaminsantahay si aad u aragtaa أنا waxaan ka aaminsanahay khalad in la yiraahdo wala xidhaya in muraadaha waxa shaqadiisa ma aha wax kale ku mashquulo aan leeyahay aad ma sansi ninkana hala dhiiri geliyo maanin gobolka wax badan u tareeyay marka ma santaa wala ayo walaalaha asxaabta qaaliga barnaamijka intaas ku gabagabeyn doonaa insha Allah kulanti dambe xiiso leh